ogashaasi waa noo furan tahay geeri koombana gogol buu ka qabaa nimanka wax teelaynaya oo ku fadhiya kuraasta absame iyo harti madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni bacdal salaam waxaan rabaa garnaqsi waxaan kala rabaa laba su'aalood oo idhaha inaan iraahdo jawaabteedana aan helo sidoo kale waxaan rabaa inaan awaal warramo sidaan ognahay waxa ayaantan socotay oo loo madlanaa in la qabto doorashooyinka aqalka sare iyo aqalada hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyada oo lagu qaybsanayo halbeeg la yiraahdo 4.5 hal noqday inaan laga guuri karin arrinkaas sidaan ognahay waxa la isu raacay wax ama reer waxaan rabaa kursiga aqalka sare ee yiilay Jubbada Hoose Kismaayo oo beesha Gari Koombe ay ku fadhiyeen haddana u muuqatay in la gees mariyay inaan wax ka iraahdo waxaan garnaqsi rabaa inaan kula hadlo tolkay Soomaali weyn Daarood Kablalax Kasi Koombe Harti haddii aan hoos ugu daadago oo biyo dhacayga aan u daadago kursigaasi wuxuu ahaa kursi ku yimi qayb oo Gari Koombe ku fadhiyeen waxaan rabaa garnaqsigaygu uu taas u quseeyaa Kablalax iyo Harti nimanka la yiraahdo tolkay Kablalax iyo Harti ee wax teelaynaya waxaan ugu garnaqsanayaa tolow kuraasta aan loo qaatay 4.5 ee faraha badan ee halka kursi Gari Koombe lagu ismay in maanta anagoo eegayna ka badan in la siiyo kursigii dufantiriyada ahaa oo ahaa inaga jeediya maanta in isagiina aad nala ku damaaciyo halkaas tolow see warkaasu yahay seeba muuqaalkaasu yahay dhagahaan see yahay dhalashaan muxuu ku daaran yahay kursiga isaga ah tolow horay waxaan maleeynaa in la dhihi doono war hal la lamaaniyo kursi labaad aqalka hoose ha loogu daro xaqiiqdii arrinka isaga ah waxaan maleynayaa lagama fara buuxsan tashigiisuna wuxuu u muuqday in uusan ku koobnayn qof iyo laba uu ku koobnaa israda aan magacaabay nimanka la yiraahdo Kablalax ama se markaan hoos ugu daadago absame iyo Harti inay arrinka inay gari weysiiyaan siyaasigooda aqoonyahankooda culimadooda dhaqankooda madaxdooda inay u dhamaayeen sababtoo ah kursiga ma ahayn mid aan la garanayn mid la ilaawi karo mid la yeelsan karo qadoodigii waxa ka daran haddii 4.5 wax lagu qaybsaday waxaan rabaa inaan su'aalo war halbeega wax lagu qaybsaday anaga Gari Koombe maanaan Soomaali ahayn maanaan Daarood ahayn maanaan Kablalax ahayn maanaan Koombe ahayn haddaan intaa ku soo qadno ma waxaanu ku qadi karnaa Kablalax iyo Koombe ma ku qadi karnaa taas arrinka isaga ah waxaan leeyahay tolow dib ha loo fiirsado hana la ka qanciyo wixii nagaga aadan haddee waxaan rabnaa in aad naga tiraahdaan kordhin baan maleynaynay maanta in la gees mariyo maleynmin waxaan kaloo idiin sheegayaa Soomaaliya waxa ragaadiyay waa cadaalad darro hadda ka horna waxaan ka hadlay 2016 shirkii qardho boqorku qabtay ee ismada Daarood isugu yimaadeen cadaalad darraduna run ahaantii ma wanaagsana meel lama tagto maxaa waxa hagaagayaan haddii aan halbeegeedu noqdo ninkii hubaysan ama ninkii dagaalamaya ama ninkii macnaha wax dhici kara oo xagashadiisu ay muuqato in la yiraahdo isaga wax leh
annagu dhaqan ahaan dhalasho ahaan waanu naqaanaa niman Soomaali aan nahay niman daarood aan nahay niman kablalax aan nahay niman Koonba baan nahay sidaa la adligeed ma garaysanin inaan wax ku weyno halbeeg ah 4.5 haddii kale waxaa naloo sheego hal la yidhaahdo Soomaaliya iyo nimanka reere iyagaas aan tibaaxayba war ma ahaydin Soomaaliya waxaan hadda ka hor hadalkaygu ahaa Soomaaliya hadday 4.5 wax ku qaybsatay annaga yaan qaybtayada nala kaga darin dadka qaybtii oo annagana ignore garaynaya run ahaantii arrinkaasi ma aha wax sahlan wax aanu qaadan karo ma aha waxaan kaloo rabaa waxa kalifay markii hore kursigaasi tartan baa la geliyay waxa kalifay in qolo loo xirmeeyo markii hore haddii tartan la geliyay oo tartankiisu furnaa maxaa maanta kalifay in qolo loo xirmeeyo oo qoladii maalintii hore tartanka u gashay oo Axmed Satiin la tartamayay in Axmed Satiin bakiinaha intii la taagay iyagaa leh iyagana ha naloo sheego waxaan tolka leeyahay tolow cadaaladdu ha shaqayso dhalashada eega waxaanina waa laga gudbayaa ma ahaanaya wax sii jiraya halbeeguna wuxuu noqonayaa dee nimaan hadalkaaga rabin hadalkaaga nimaan rabin wehelkiisa lama rabo Soomaali weynay caalamka waxaa jira dad kala dhaqana kala diina kala dhalasho ah kala afa oo masaalixdu ka dhaxayso ilaashada masaalixda guud Soomaaliya oo isku dhaqana oo isku dhalasho ah oo isku deegaana oo isku luqada markii gari koomba laga reebo oo la diina maxarkaan saa leeyahay Soomaaliya way iska aragtaa matalaada laakiin gari koombe matalaada iskama arko waxay u egtahay gari koombe inuu diinta la wadaago Soomaaliya laakiin dhalasho iyo dhaqan ahaan iyo dub ahaan iyo kalar ahaan inuusan la wadaagin bay u muuqataa markii matalaada laga wardiyeenayo waxaan hadalka ku soo ururinayaa annaga haddaanu nahay beesha gari koombe anigoo ku hadlaya magaca beesha gari koombe ahna ugaas Cabdisalaam Jaamac Faarax arrinka dib ha loo eego hanala ku qanciyo waxa kalifay inaan matalaadayada ka arki weynay anagoo run ahaantii wixii ummaddu ay baxdo cashuur bixiyayaal aanu nahay aanu ka qayb qaadano difaaca dalka horumarinta dalka deegaan magac ahaan iyo muuqaal ahaanba gogashaasi waa noo furan tahay gari koombana gogol buu ka qabaa nimanka wax teelaynaya oo ku fadhiya kuraasta absame iyo harti madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni waxaa noogu furan gogol baa nooga furan haddaanu nahay gari koombe anoo ku hadlaya magaca bulshaweynta gari koombe gogashaasi waa noo furan tahay qanaceeda iyo ajiibkeedana waanu ka sugaynaa intaasna waxaan rabnaa in naloo ogaado nalokuna dhegolnugaalaado gogasheeda iyo goobteedana naloo ku yimaado asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah